weydiisaa see lagu helaa ilaahay wuxuu gacantiisa ku hayo mulkigiisa ku jiro sida bani aadamku wax isaga qaato loogama qaadi karo xoog wax loogama qaadi karo xatooyana wax loogama qaadi karo dhaciya boobna wax loogama qaadi karo waxa wax looga qaataa ilaahay tacaala allahu can dalika culuwan kabiira adoonnima wax lagaga qaataa taaca la ateeca wax lagaga qaataa barya la baryaa wax lagaga qaataa amarkiisoo la raaco nahyigiisoo laga haro ayaa ilaahay loogu dhawaada oo wax lagaga helaa qofka muslimka ay midkaas inuu ogaado waa shay aad muhiim ah waxay keenaysaa inaad ogaatid boqolkiiba boqol adoon inaad tahay aan xor ahayn madax bannaani haysanin ilaahay addoonkiisii ah rabbigii ku hoos jira habeenaya maalinna u baahan inaad taad ogaanaysaa markaasaa ilaahay wuxuu leeyahay yaa ayuha annaasu antum alfuqaraa'u ila allah wardadyahow ilaahay baad u baahan tihiin baahida aanu qabno waa baahi lafta iyo dhuuxa iyo dheecaanka iyo dhiiggeenna ku jirta habeen iyo maalin ilbiriqsi ilaahay kama maarmi karno subxaanahu wa tacaala ilaahay baa u baahan tihiin adduunkiinna iyo aakhiradiinna alla leeyahay markaasuu ilaahay isaga kaa warbixiyey si laguu soo dhoweeyo oo baahi tirid inaad hesho lagu tuso wallaahu huwa alghaniyu alxamiid alle waa axad hani ah waa hani waana axad la mahdiyo in isaga loo baahan yahay mooye cidba ilaahay uma baahna subxaanahu wa tacaala waa laguu sheegaya adoo lagu dhadhansiinayo oo lagu jeclaysiinayo inaad addoonnimada iyo baahidaad qabto rabbigaa la hoos gasho subxaanahu wa tacaala sidaa awgeed baa qur-aanka markaad fiiriso nebiyullaahi shucayb fii suurati huud aayadda 88 qoomkiisuu la hadlayaa in uriidu ila alislaaxa ma statactu anigu waxaan wanaag ahayn ma doonayo waxaan idiin dhex taagnaho diinta idinku sheegayo war inaad wanaagsanaataan baan doonaya wax dadaala oo aan idinkala harayana ma jirto awooddayda inta ah khayrkii la ilaahay ii soo dhiibiya diinta waa idiin sheegaya muxuu ku daray nebi shucayb wamaa tawfiiqii ilaa billaah waafajintayda khayrka allah igu waafajiyo ilaahay unbay ka ahaatay xaggiisa in aniga ilaahay rasuul iga dhigo oo la isoo diro oo diinta la ii soo dhiibo oo xag alle layga soo adeejo oo idinka laykiin dhex keeno oo aan khayrka idiin sheego muwaafaqo ilaahay weeye subxaanahu wa tacaala wamaa tawfiiqii ilaa billaah calayhi tawakaltu anigu ilaahay ba igu filan oon tala saaranaya وإليه أنيب اللي حق يسر من نقنيا إلهي سبحانه وتعالى مركلة في سورة الحجرات ولكن الله حبب إليكم الإيمان ورديه إلهي سبحانه وتعالى وحوي إذن لا تشعل هذا إيمانك وقال إيمانك يسقى إذن شعلي سيو إذن سي سقى إن وقرت إلهي إنا مؤمنين نقلنا إلهي سقى كوقرت إنا إيمانك هشوك سي qof ilaahay dhalasho la wadaaga iyo nasab ma jirto isaga ilaahay ku gartay maalintii uu ina abuuray makhluuq hadayna bani aadam ayuu qaarkeena gaala ka dhigay qaarkeena ilaahay muslimiin buu ka dhigay ilaahay nicmadiisa kuwii uu islaamnimada siiyay ilaahay nagu daray alxamdulillaah rabbil caalamiin maanta waxa arkaysaano cad kuwa badan oo bani aadam oo kula mid ah oo islaamnimada ilaahay aanu siinin oo gaala ah oo nool oo u qaba hadana inaan waxba ka maqnayn oo isla quman oo diin la'aanta ku quman waad u jeedid oo la rabo inaad u dadaashid markaasa ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala iimaanka inuu idinla jeclaada keliya maaha wazayanahu fii quluubikum jeclaysiinta iimaanka laydin jeclaysay ilaahay idinla doontay qalbigiinu ilaahay iimaanka ku qurxiyey oo idinkaa tukanaya oo laa ilaha illa allah muxamadu rasuulullahi oo soomaya oo salaadaya oo masaajidda gelaya oo khayr ka shaqaynaya qalbigaagaa lagu qurxiyey iimaanka wakaraha ilaykum alkufra waalfusuuq wixii iimaanka xumaynayana ilaahay waa idinla nacay gaalnimada dembiyada waaweyn dembiyada yaryar faasiqnimada xumaanta macaasida qurunka ilahay waa idinla nacay subxaanahu wa tacaala ulaa'ika hum alraashiduun kuwaasi waa kuwa hanuunsan baa ilaahay yidhi aayaddaa markay soo degtay laga bilaabo nebigu wuxuu ku ducaysan jiray allaahuma xabib ilayna aliimaan wazayinhu fii quluubina wakarih ilayna alkufra waalfusuuqa waalcisyaan wajcalna min alraashidiin ku ducaysan jiray nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh markaasaa ilaahay wuxuu tilmaamayaa arrintaasi muwaafaqo ilaahay inay tahayoo fadlan min allaahi wa nicma
إيمانك يا خير كان لقسي وفضل إلهي النعمة الله سبحانه وتعالى والله عليم حكيم nimankii madiina u yimid nabiga sallallahu alayhi wasallam herbaadihi magaalada madiina duleedkeeda deganaa oo soo muslimay ayaa rasuulka u yimi iyagoo u abaal sheeganay inay soo muslimeen maxamedo waa soo muslimnay diintaanu soo galnay sidii hadalka ay u dhigayaan inay ilaahay abaal ku leeyihiin rasuulkana abaal ku leeyihiin alayhi salaatu wasalaam ilaahay muxuu ugu jawaabay balillahu yamunnu alaykum an hadaakum liliimaan in kuntum saadiqiin idinka abaal laydinku leeyahay وإلهي إيمانك إذن كهنونية وقال لما إذن كسو قبطي الله سبحانه وتعالى إساقا أبال إذن كله إلهي إساقا أدونكو دونه خير كوافتية وتوسية بل الله يزكي من يشاء الله إساقا عدي دونه تزكية في سورة النساء مركلة ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا هدي إلهي فضلgiisa naxariistiisa aanay jirin oo joogin waa jirtaaye ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala saad u dhantihiin shaydaankaad raaci lahaydeen wax yar mooyaane walowlaa fadlullahi calaykum waraxmatuhu maa zakaa minkum min axadin abada ilaahay tawfiiqdiisa iyo fadligiisa naxariistiisa oo jira haddaanay ahaan lahayn hal qof idinkama wanaagsanaadeen baa ilaahay yidhi intiina wanaagsan ee ilaahay khayr ka waafajiyey إلهي با أقرتي أو توفيق دسيه سبحانه وتعالى وحيرتاسي مركا أباهانتي إناد إلاشطه سياد يقول لي بانتو ولي واحد سوى عن أرنكاسي كوغو عدانا يا كو إلهي توفيق دا يهنونك كقديي القرآن كأوكو قيحي مركا دركتو آيات بقدين وينيكو قليسا بل هذا وفير القرآن في سورة يونس إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية وفيرس آية كو إلهي وحليه سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى كو أي كلمدي سدشو ذا كل بودي وأيان درد إيا النسيب لأنت إيا عذاب كاهي لا يؤمنون حق إمر مينيا ولو جاءتهم كل آية كستهدي الله كينو قلبي قد مقاليش وآيو خير درها أقرن إلى إنه وافتيكم التلقين سو مركا أدنا مركا لغو سيجي كي كالنا السال ليري سو إناد بقاتا ماها مركا وعبستيد إن إلهي إسلام نماذا كوغو إلى عليو وكوا سيغي أو كالي آدن سيغين مركا لفير القرآن في سورة الأنعام ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله sida nimanka looga warramay ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala haddii aanu annagu u soo dejinno malaa'ig la hadlaysa oo hataa kuwii dhintay la soo saaro oo awowayaashooda hore la keeno oo la soo hortaago oo wax kasta loo sheego maa kaanuu liyu'minuu kuwa ilaahay rumaynaya maaha subxaanahu wa tacaala ilaa an yashaa allah ilahay inuu doono mooye subxaanahu wa tacaala mar kale fiiri fi suurati alxaj ومن يهن الله فما له من مكرم قف إلهي إهانيو دليي والدين لآن إلهي كدقي عد كرامين كرتا أو توفيق يهنون سين كرتا مجرت إلهي سبحانه وتعالى مركل فيري في سورة النحل رسول قال الله إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل هدي حتى سكست أود ذا شيء النبي قال الله صلى الله عليه وسلم وهنون كودا كد داشيد والله فهدكتid إلهي سبحانه وتعالى عد ويسقول لمية ما هنون كرت عد هنون كرت ما جرت سكست هدي لو قدمه نبي قادرك وقرنيسا سكست الله يا عمي قل لا إله إلا الله آخر موته أبدا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء إلهي بهنونك هيا سبحانه وتعالى مركلة في سورة فاطر أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا بل آية دوحة كدن بيئك فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء بل قف عمل كيسي حما وعنان إيا وناك لوطسي أو إسلاق من أو قمانها قرت وقتشر ونسلو عيه حمام بو نفراها كل جرى مركز ألا وحو كليه فإن الله يضل من يشاء اللي عده دون إساقا لمية ويهدي من يشاء عده دون إساقا هنونية فلا تذهب نفسك عليهم حسرات
هسكو كريني بان النبي عليه السلام نفط هذا كو هلاقين وما تاج هليس دد كان إن بدن وكم إذا عذاب إلهي وتلقى سبحانه وتعالى إن الله عليم بما يصنعون دد كان وحي سمين أيان إلهي وأجيه سبحانه وتعالى يماشي يقدم بين دونا أنت ما كأوفر سطو رسولك جبردي يسيب الله لفاطمة بالحديث كثير حديث كإمام النسائي ورينا يصحي حسن كدرجة دي سوتهاي جبردي رسولك صباح ويمت فاطمة أقلك ويمي ونبوقن شرين أنت بطن ونتشعلاء السجا يدا يؤبد كده بقى ما يمنعك فاطمة أبو محاكو ديدية أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت إنا تراهضه صبح مركاد وابريسته إيا قلبتي مركاد قاعدو إنا تراهضه محاكو ديدية بمعنى ما تراهري دوي أو ده والله جيدا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبو سيدا دوي معنا صبحي إيا قلبتي وحاتر هذا إلهي مقعيدي سكبري الله حيقا النول جنيا إنسي ودمانيان الله قيومك نفتي سيا دوما حاجة ودبا أتاغن أصلح لي شأني إله أرين كيغا أو دن إيهاجي دين تيدي الدنيا دي إيهاجي نفتي إذا إلهي وإسكما في الله هيقسي ديني البرغس إن لك إله النفتي إذا البرغس هيقسي ديني سيدا عديب النبي يقول صلوات الله وسلامه عليه سببها مركة أفر صدح سببات بانشيغي وقفك السبب أقول نقون كراه إسلامي مدي ألا أوسيي إنو كسي أتكيستو كتوس نادو توفيق دا هداية دا إنو هايستو سببها شريعة دو شيكتين سببها سيقفك هدو كد دالو وحا الله رجينا يا الله فيليا إنو هداية يا توفيق النولادو دينتا إلهي شرعي كقم منادو مالنتو لمن يسيف عنو غيريو كو صوبت كوات صوبت كوادي وحوي نيدادو هوا ناكسناتو وحكستو عملو أتسمينيسو أما دين تادا أكاشنيسو أما الدنيا تادا أكاشنيسو در إلهي يداعدني ما كان نقط در إلهي يداعدني حاميشي كبحية استستس اسم قشيس الدون رادس أمان رادن ملقوية ماموس بني آدم هكدوني نوع كستوات سمينيسو ويا رسولكم حوي حديث كاوضا قرانا إنسان إنما الأعمال بالنيات أعماش وحلو إيجا يكون هجاجي سوى النيوين كم النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذا وحوي ما كان عمل سمينا يسو وحد النيوتاد لاضح قرآنك وحو شيء قبر عقلي قال لك جتشيرو أورهر ما كأحيد وأرورتي مركا واجو بريو أقل كودا صوفريسة تهورتيسة مركاسي وحي بلوضا إني صوخدو أما أي سميسو أوفر سميسو تدعو درموين أما ألابو يحركة إسكو حريسة إلى ما أنت أردن بشقينيسا قال إن كدم بمركا لقارو وحي أي ساكو أردن سمينيسي بديبو فرفوريسا هدنا التعب خسارك أنت عليك قف أنتو قرد ديسي إلى ساكا إلى عصرك ديسي وعصرك مكا لقاري الدباء أنتو قاتي ديبو دميني كورا هدو ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا هنقننا سيدي مدي انتي وحي أي فرسمين لهيد وسوهي لهيد أتكيسي كبعد ديبو فرفرتي بإلهي سبحانه وتعالى عمل كستو أتسمين يسو إلهي بس أو حكاك هذه ألا لله الدين الخالص فاعبد الله مخلصا له الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين إلهي درت أسمه بني آدم كما نولين كرو كما ديلي كرو عافمات كما سين كرو كما أرزاقه وح الله وحو قعنكو وهايا مجرد إلهي بأرمها قعنتك وهايا تاس وقضبك كوات إلا وحا جستو إلهي كو قصينا يو توفيق ذا إن إلهي كو أتكيو ما دام قلبي قاقو إلهي كو حليني سبحانه وتعالى قضبك كوات قضبك اللباد وحوية كثرة الدعاء ميل لغو سو جيره ما اوغيد ilaahay baryadiisa badso ha isla qumanaanin dadka inaad ugu fiican tahay moodin hadaa diinta waxoogaa barato oo salaada masaajidka xaadirto oo quraanka akhrisato oo fiican tahay ha isdhihin dadka adaa ugu fiican ahlu janna adduunka lugeynaya tahay isugu sheekayni saxaabadii oo kala tahay isugu sheekayni cabso in laga daba yimaado cabso
imisaa wacnayd oo xagga kale u rogantay imisaa xumayd oo xagga kale loo beddeloo wacnaaday baqdini ha kugu jirto naftaada dhaliil naf yahay waa lagaa fiican yahay ilaahay cibaadadiisa waa lagaaga wacan yahay walaalaagaa muslimiintaa kaa fiican waa lagaa toosan yahay waad khaladkaagaa badan iscanaano ilaahay baryadiisa badso subxaanahu wa tacaala ilaahay wuu ka warramay waidaa sa'alaka cibaadii cannii fa innii aayaddaasi culimmadu waxay leeyihiin 8 damiir baa ku jira oo qur-aanka aayad ka mida aan lagu sheegin 8daba ilaahay ba u noqonayaan waidaa sa'alaka cibaadii cannii fa innii ujiibu dacwata daaci idaa dacaan falyastajiibuu lii walyu'minuu bii bal tiri adigu 8 baa ku jira damiir 8daba ilahay ba u noqonaya subxaanahu wa tacaala ilaahay baryadiisa badso subxaanahu wa tacaala in ilaahay islaamnimada kugu sugo ziyaadada hanuunka kuu kordhiyo tawfiiqda ilaahay ku waafajiyo alla weydiiso subxaanahu wa tacaala qodobka saddexaad sidqu tawakkuli cala allah si run ah oo dhab ah ilaahay u tala saaro alla u cusko aqoontaada xooggaaga raganimadaada kartidaada fariidnimadaada keligeed ha cuskanin ilaahay tala saaro subxaanahu wa tacaala wixii awooday uu ku siiyeyna kaalmayso isagaa ku siiyey hadday aqoon tahay hadday caafimaad tahay haddii ay karti tahay haddii caynkan tahay waa bacdu kaalmayso laakiin marka hore ilaahay tala saaro subxaanahu wa tacaala wamaa tawfiiqii ilaa billaah waa nebigii ilaahay aan soo marin hadda waafajinteedu ilaahay unbay ahaatay anaa isku filan maaha waxaa annagaa qabanay aqoon baanu u leenahay waxaas awood baanu u leenahay annagaa samaynay annagaa fulinay maxaad samayn kartaa fulin karta miskiin baa tahay aqoontaada iyo cilmigaaga iyo awooddaada iyo caafimaadkaaga iyo kartidaada ha isku hadlayn waa kadib waa wax lagu siiyey kaalmayso laakiin ilaahay baa ii waafajiyey ilaahay baa ii suurageliyey ilaahay baa ii sakhiray ilaahay baa ii taysiiray ilaahay rabbi addoon edebla waa inaad noqotaa aad ogaatid waxaan in ilaahay ku siiyey waxaan kale ee lagu siiyeyna u kaalmayso marka adigu waa qodobka muhimka ah waa kaas ilaahay muxuu leeyahay u fiirso in yansurkum haddii ilaahay idiin gargaaro idiin hiiliyo falaa ghaaliba lakum wax idinka adkaan karaa ma jira xagga kale u fiirso wain yakhdulkum hadduu ilaahay idin dulleeyana faman da aladii yansurukum war yaa idiin hiilin kara min bacdihi ilaahay dabadii ka jawaab baa lagu leeyahay yaa idiin hiilin kara halkan maxaad ka ogaatay hiilka iyo hoogguba gacantiisay ku jiraan haddaad waddada hiilka martana waa lagu hiilin waddada hoogga haddaad martana waa lagu halaagaya labadaba isaga gacanta ku haya maxaa laga dambaysiiyey wacala allaahi falyatawakkal ilmu'minuun mu'miniintu ilaahay ha tala saartay qodobka saddexaad islaaxu nafsi bilcilmi naftaada cilmi ku hagaaji naftan cilmiga sharciga ah baro waa nasiibkii nebi maxamed adduunyadan keenay sala allahu calayh wasalam ha ka qatanaanin diinta barashadeeda iyo cilmiga sharciga ah qofaan maanta wax baran karini ma jiro dadka waxaad arkaysaa qof adduunyada xariif ah sida wax looga soo saaro by businesska iyo ganacsiga adduunka shaqada kasabka diinta marka laga hadlo caamaan ahay buu ku leeyahy war maxaa albaabkanna kaa xidhay kanna kuu furay fariidnimada adduunka aad ku baacinayso maxaa diiday aakhirada inaad ku doonto maxaa diiday ma jeedaa waxaa la rabaa in aad cilmiga sharciga ee diinta nasiibkaaga ka qaadato waa diintii nebiga loo dhaawacay ilkihiisa qaar loo jabiyey loo dakray loo dhibaateeyey intaasoo kun oo saxaabaa u dhimatay si tartiiboo macaan bay kugu soo gaadhay baro diintaada diinta oo la bartaa tawfiiqday qayb weyn ka tahay ilaahay inuu ku waafajiyo sida khayrku ku jiro diinta barashadeedii ku jirta man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin buu nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxaa ka mid ah waxyaabaha ilaahay uu kugu sugayo mujaahadatu nafsi cala alcibaada nafta inaad kula jihaado oo naftaada kula halganto oo kula dagaalanto si fiican ilaahay inay u caabudo subxaanahu wa tacaala salaadaha faralka ah 5 salaadood masaajidka ku ilaali sunnayaasha ka dambeeya tuko subaxa iyo duhurka iyo maqribka iyo cishaha iyo sunnayaasha la socda raatibka tuko salaatuleylka tuko duxada tuko quraanka akhri wardi ha ku lahaado tasbiixda adkaarta subaxii galabtii wardiga la dagaalan naftatan haddaadan ku mashquulin cibaado iyo taaco
معصية إيا قرن إيا باطل بأفك كوغلينيسا نفط عبادة كل ددال إلهي وحولي حديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه أدون كيغا وح أن كتش على هاي إنه يقصوا دواذا وح أن كفر دي لي مجران بور الله لي سبحانه وتعالى قبدا إيو قنته وحيابها أتكون مضنيسا وحا كمدا التواضع تواضع كبيرك يسلي وينانته يسلي بحدة إسكا إلاري تواضع إسلولك إسهوصلك ضدك هايسكا وينيسين هايسكا كبرين هدي إلهي أما أقوان كسية أما إلهي عقل كسية أما إلهي مال كسية أما إلهي دين تكوغد يقى النصيب ضدك هاكو كبرين هايسكا وينيسين هايسلا وينان تواضع هذا تواضع ذو وهوس إسودكتو قفكي هوس إسودك تواضع إلهي كرب أقادا كي كر إسو قادنا بلكو إلهي كرفتا سبحانه وتعالى قضب كاسني ومهم وحي إلهي نصيب أدونك كسيي هدي أقونتها هدي مالتها هدي عقلتها هدي عافماتها تواضع كبيرك إسكتا مركا سأركسا أدومها قاركود قفكي إساقو أو مركا أسعونيو كبيرك أنتو كبطي سعودك إلهي وأبو ريبو كتي مركا أساسو إلا وحا وسعود ومتيلي وخلدانه سي كان بو أسعونيا مربسي بو أسعونيا قارب أركسا هذا الكود يسيديهين ضدك سيوية الصيان ضدك هيسي هقورصنين هيسكا كبرينين هيسكا وينيسينين أدون إلهي تواضعي النقو وولالك مسلم كاد إسكا كبرينيسي إله وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا وسماحا اللهم ارحم والدينا رحمة واسعة اللهم ارحمهم رحمة الأبرار اللهم نور لحودهم ووسع قبورهم وافتح لهم من أبواب الجنة ليجدوا ريحها وريحانتها اللهم اجعلهم ممن يشربون حوض الحبيب شربة لا يظمؤون بعدها أبدا اللهم اجعلهم ممن يدخلون شفاعة الحبيب اللهم اجعلهم ممن يستظلون تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعلهم ممن يعطى كتابهم بأيمانهم يوم القيامة اللهم اجعل والدينا في أول زمرة يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب اللهم اجعلنا من بعدهم ذرية صالحين اللهم اجعلنا من بعدهم ذرية صالحين اللهم اجعلنا من بعدهم ذرية صالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أنت العزيز أعزنا وأنت الكريم أكرم بنا وأنت اللطيف ألطف بنا وأنت الستير أستر عيوبنا في الدنيا والآخرة اللهم أنت الرحمن الرحيم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء اللهم أنت الهادي اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك